ninka ugu ildirba dadka ugu ayaan daran waxaa laga arkaynaa isaguna muqdee dictatoriyad waxaa lagu gartaa inaan sharci lagu soconayn rule of law oo ah wax dowladnimadu ku salaysanta dowladnimo waxaa sal iyo asaas u ah rule of law wax la yidhahdo waa xukun ku dhisan sharci dictatoriyad wax sharci ma jiro meel dictator ka jiro waxaa sharci ah dictatorku wax uu soo saaro wuxuuna ku shaqeeyaa dictatorku waxa la yidhahdo degree oo aad decreto ee soomaalida u taqaano uu soo saaro taasaa u sharci ah waa tii maxamed siyaad barre uu ku shaqeyn jiray waa tan ninkan eritrea haysta uu ku shaqeeyo waa tii uu ku shaqeyn jiray mengistu xeele maryam waa tuu ku shaqeyn jiray mabuto sese seko waa tii bedel bukaasi uu ku shaqeyn jiray meel walboo dictator ka jiro waa degree le lagu shaqeeyaa dastuur laguma shaqeeyo sharci ma jiro wuxuu afkiisa ka yihahdaa sharci ah waddanka o dhan wuxuu ku jiraa calaacashiisa isagaa la barayaa laga barayaa nabadii asaa laga barayaa noloshii asaa laga barayaa ummaddu inay istafarta xataa waa ogtahay maxamed siyaad barre xilligiisa qof ka safri kara airbortka xamar ma jirin basaboor si lagu qaataa adkeyd baryaa lagu soo qaadanayay iyo in la tuugo marka qaran ma jiro waxaa jiro real estate waa wax uu nin leeyahay keligiis ninkaasaa u barya tegaysaa adigu bas dalkaas wax aa ku leedahay ma jiro waxa uu adig kaas iyo kaas ayaad qaadanaysaa baar wixii dhacay oo dhici jiray xilligii dictatoriyadu jirtay meel walbaba marka tan maanta jirto iyo dhibaatadii dictatoriyadii in maanta dib loogu noqday waa nasiib darro weyn oo qof kastoo soomaali wax gartaa uu la yaabaya ha markuu yimid ba hawshii ugu horreysay oo la qabtaaba ku salaysnay dictatoriyad waxayna ka bilaabatay iyadoo si sharci darro ah wax qaanuun ah oo loo maray iyo wax sharci ah dowlad fal kasta ay fulinayso waa inay sharci u kaashataa tallaabo kasta oo dowlad ay qaadayso waa inay tahay tallaabo sharcigu u ogolaanayo sharciga waddanka u degsan wixii aan sharci u ogolaanayn kasta oo la sameeyo oo sharci darro ah waa qaab mafiyism ah iyo morianism waa wax aan marnaba dhaqan dowladnimo lahayn waxaana ay ka bilaabatay dictatoriyadiisu dhiibistii nin mujaahida oo xaqu dirir ah oo dagaal xaqa ku jiray oo dadkiisi u dagaalamayey dhul soomaali ka maqan u dirirayey inta habeen cad la soo qabtay indhaha looga soo duubo gaalkacyo cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax ciidanka xoogga dalka ka tirsanaa ee gacanta loo geliyey Ethiopia taliskii TPLF EPRDF ayada oo aan wax qaanuun ah ama extradition law sharci yani wax iswadaarsi annaga Ethiopia na dhex oolin na dhex ooli karinba na dhex mari karin maadaama dhul iyo diin iyo xuduudo aan isku haysana gumaysi sameeye ah taasay ka bilaabatay maalintaasay caddayd ayay ahayd ummadda Soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeesto iska qabato dictatorna sideedaba waxaa la qabtaa markuu bilow yahay mar hadduu xididaysto meel laga soo qabto male sida keliya lagu qaban doono waxay noqonayaan dhiig badan in la daadiyo waad ogtahay dhiiggada ku daatay in waddankan maxamed siyaad barre laga saaro dhiiggii bilowday 77 dagaalkii 77 markaan ka soo noqonay dhiiggii bilowday ilaa 1991 socday kadibna ka sii daray markii meesha asaga uu ka baxay ilaa raad xumadii iyo calool xumadeedii ilaa maanta inala socoto dhibka laga soo maro waa la socotaa 40 iyo meeqa sana ka soo wareegtay 77 43 sano maanta oo 2020 aan marayno oo lala daalaadhacayo dictatoriyad kale haddii meesha sanadkan ama sanad soo socda la ciirsho dagaal uu ku baxo iyo dhiig consequence ka dhalan doona in la qiyaasaa la rabaa maanta laga fikiro oo ubadka Soomaaliyeed la badbaadiyo dumarka iyo carruurta la badbaadiyo dadka ku le'an doono cawaaqib xumada ka imaan doonta falalka dictatoriyad ee waddanka maanta dagaalada loogu horreeyey meel walba qabaa'ilka inta la isku hubeeyey ay isdilayaan oo gada wax ka socda laba juf ay isku dilayso oo midna asaga uu hubeeyey midna Kenya ay soo hubeysay xabadda ay isku haystaan saakay waxa ka dhacaya galmudug aad u jeedid in la isku hub urursanayo ya waxa ku sii socda Puntland aad u jeedid waxa lala dabacsan yahay Somaliland aad u jeedid South West wixii ka dhacay gumaadka aad la socotid Hirshabelle cagta lagula tunto la baabi'iyey gobolka Banaadir lagu hanjabayo leeyahay waa la idin leynayaa dadka haddaad soo baxdaan oo cid banaan bixi karta cid hadli karta jirin de waad aragtaa waxaan ay taas meesha nageynayso waxay nageynaysaa waxa weeye dhiig daata iyo halaag dowladnimo dimuqraadiyad ay ku socotaa cadaalad ay ku socotaa waa dhab laba jeer uu cadeeyay inuusan doorasho dhigayn lana tartamayn doonayana inuu iska sii haysto meesha mar waxay mar uu qudbeynayay lahaa
wadamada dariska qaarkood uu tusaale usoo qaato yiri dowladahoodu de isma bedelaan waa soo taagan yihiin waxaa loo baahan yahay dowlad iska socoto joogta meeshii iyo mar uu lahaa continuity loo baahan yahay inaan sii joogo uu lahaa aniga kaliya sii joogay meeshii marka waa clear laba caddeyn oo waaweynaa oo concrete ahaan hortaala oo ah inuusan rabin inuu meesha ka tago marka doorasho ma dhigayo mana damacsana inuu dhigo hadduu dhiganayana wuxuu rabaa inuu dhigo doorashooyinkan dee wadamada dictatoriyadda dhan doorashooyina laga dhigaa wax doorasho ku sheega laga dhigaa laisaga shubto oo dee 1986 ba maxamed siyaad bare doorashuu sameeyey may ahaa blue iyo red midab blue ah iyo mid guduudan la dhigay oo la yidhi ha iyo maya qof ku ridana ayadoo qoorta la wado xabsi lagu tuurayay wixii ummadda oo dhan ay marka haa ku shubtaa iyadoo baqaysa in la dilo ay ka caabsanayaan marka dal saas lagu mahin karo taariikhdaas waa soo aragnay wax cusubaa loo baahan yahay weji cusub waxaan soo marnay iyo halaagii na dhaxal siiyey 77 ilaa haddaan dhiigga daadanaya 43 sano inaan maanta dictatoriyad dib intaan ugu laabanno isla halaagii kale mar kale u dhaco dee waxaan maraynaa dee waa ummad waxaan noqonay halaag u joog ah dadka taa ku taageersana dee waa dadaan dad iyo dal midaan dan ka lahayn haddii ummaddu dhiig ka dhex daato la kala qaxo la baaba'ona aan dan ka lahayn aad mooddo dee dad waxay ku khasaarayaan jirin wixii baaba'aya aan dan ka lahayn ama iska cuqdadaysan ama iska emotional ah ama iska qabyaaladaysan oo leh dad baa wax laga duminaya reer hebel baa wax la yeelaya u aaminsan laakiin weji qarannimo beena ku gabanaya dad noocaasa iska jira oo iska dhibaataysan waan leenahay ilaahay caafiyo marka dee waddanka waa aragnaa cid kastoo wax garatana way aragtaa dictatoriyaddan meesha ay namalkinayso inay tahay halaag iyo dhiig daata iyo wixii dhacay 1990 iyo kala cararka meesha ka dhacay iyo hogaamiyihii dictatorka ahaa cararkii u cararay u qaxay qaxitaanka u qaxayna ay noqoto inuu qabiilkiisa u qaxo marka maanta farmaajo meeluu asaga ku qaxaya maba jirto iyo meeluu ka bixi karo ku qaxi karo dhulkii shabaaba meel walba fadhiya dadkiisina de waa kuwa isku diray oo laba jufo xabadaha isugu dhiibo weegan islaayo isdhameeyey dhiigu ku daadanayo jufo asaga hubeeyey uu taageerayo ciidamada meelaha uu kasoo qoro uu dulgeeyey uu ku saaciday iyo jufo kaloo iyaduna Kenya hubka hesho saaciday ay meeshii ku dirinayaan balad xaawo de waa ujeedaa marka waa meeshii ugu dambeysay ayay maraysaa aniga waxaan kula talin lahaa hadday tala yeelayaan Soomaaliya xukun dictator ah kama shaqaynayo inay dimuqraadiyaddii lagu doortay ay horta ilaaliyaan oo aysan gacmahooda ku dumin oo taariikh mugdi ah waaba ka tagayaan oo taqalba dhagaxa ugu horeyse iyo wixii la mid iyo weerarka guriga Cabdiramaan Cabdishakuur iyo gumaadkii Baydhabo laga geystay iyo dadka afka la qabtay loo diidan yahay inay magaalada Muqdisho ka hadlaan dadku aysan shucuurtooda cabiri karin banaanbax ku cabiri karin qoraal ku cabiri karin hadal ku cabiri karin maskaxdooda ka cabiri karin inay dimuqraadiyaddii horta lagu doortay ay sugaan marka koobaad kadibna dadku u ogolaadaan in ay shacbigii ciduu rabo uu doorto ciduu rabo inuu xilka u dhiibto sidii shalay ayagaba baarlamaanka Soomaaliyeed uu aaminay baarlamaankan maanta ay baabi'iyeen oo kala daadiyeen oo baarlamaan jirin sharci jirin waxba jirin waddanka oo dhan uu gacanta galay dhowr nin oo tirsan gacmihiisii say rabaan ay ugu ciyaarayaan dan iyo hela ay kala yihiin jirin haddii ummaddu baaba'ayso iyo hadday iscunayso iyo hadday dirirayso ayagu dantooda kaliya inay kuraastaas ku fadhiyaan ummadina ay qoorta isu wada geliyaan dhinac walba meel walba isaga direen discourse isugu direen furmihii dagaalka isugu direen meel walba ka dileen inay dib isugu laabtaan oo ay badbaadiyaan inaan waddanku civil war gelin hadduuba ku jiraaye inaan dhiig iyo colaadihii dib loogu noqon kuwa ka sii xumaa ee sagaashameeyada waddanka ka socday ummadda Soomaaliyeedna waxaan kula talinayaa inaysan ku kala qaybsamin waxaan oo ay meel uga soo wada jeestaan damiirkoodii u soo noqdaan dadnimadoodii soo ceshadaan u midoobaan inay dowlad sax ah oo cadaalad ah oo sharci ku dhisan oo dimuqraadiyad ah oo horumar u jihaysa oo baahida iyo faqriga iyo gaajada iyo jahliga waddanka jira ka saarta inay qabanqaabadeeda galaan oo aysan wixina ama koox ugu kala qaybsamin ama qabiil ugu kala qaybsamin ee damiirkoodu dareensiiyo in wax wanaagsan waddankan laga helo fiiri waxaa jira nin mufakar oo muslim ah qarnigii 14aad oo la oran jiray ibnu Khaldun gaaladan iyo cilmigooda dhan waxa loo aaminsan yahay inuu yahay mufakarka u weyn ee cilmiga sociology-ga iyo taariikhda sida uu hindisay oo iqtiraacay wax cusub u alifay marka wuxuu leeyahay fikrad cusub afkaar dhahaysa faqri meel hadda ku aragtid iyo gaajo iyo baahi iyo iscunitaan iyo ummad baqtisay ayadoo uun iscunaysa is caayaysa is dilaysa haddaa aragtaan wax noocaasa
وأمد ضمير كباش وير ودنما دي ضمير كيلو مس مركا ضمير مر هدي لو مسي أفلقادو دجال يدل يسعين كل واحد شيء يقولها ور إسواناجية ور عردي ندتها ور إسقرحية ور شرع سمايستا ور قانون أي دولة نما كسعتها دكتاتورية دي أنت اللي قدولة أنت اللي غبتي قال مدوجا الحرية أنت دولة نما معها وها صح ده دولة نما وفانتين دواكو أعطوني سوانا كو عمر تجيسان مركا إسكوسو نقطة ميركي نسوع عشتا دميركي ندب النولايا مركا قابن قابية سيد الوجه اللي هالدولة صح ودنا كان سويدية صدهم سنة قدام بيسي هو اللي إلى علنا يبضل إلى علنا ما أنا إلى علن كرو كنت دكتاتوريين لقوم إلى عليه مركا أنا أتشنى ضلكي سان سماها دكتاتوريين وحول لقوم جاري أنت وحلا جسار أنت لا جسار بري إسلاميش يعني لقول عبنا يوحي عنك صباحنا Aku degi ne nodi